shirweyne si heer qaran ay u soo abaabushay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ayaa maalinimadii maanta ay ka qabsoomay hotel Grand Hadi ee magaalada Hargeysa. Shirweynahan oo ay kaga hadlaysay 27 sano ee u dambeeyay Somaliland waxyaabihii uu qabsoomay. Shirweynahan ayaa waxa ka soo qayb galay in ka badan 25 dawladood iyagoo halkaasi bogaadiyayna waxyaabihii uu qabsoomay Somaliland laguna soo bandhigay marxaladihii kala duwanaa ee 27 sano ee u dambeeyay Somaliland ay ka soo gudubtay. Shirkan waxa ka soo qayb galay madaxweynaha qaranka Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire wufuudo kala duwan saddexda xisbi qaran ee Somaliland. ugu horeyntii xafladaasi waxa furay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire isagoo ka sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee Somaliland soo martay 27 sano ee u dambeeyay. To this two-day international conference, which I hope will be an annual feature in the calendar of the ministry. I want to welcome especially our international guests for accepting our invitation, coming from every continent and putting up with the inconveniences of long hours of flight. We are honored and pleased to have you here among us. Thank you very much. Before I move on to the subject of my speech, I want to thank the organizing team who worked so hard to make this event possible. Thank you, thank you. The theme of the conference is Somaliland Achievements and Challenges Ahead 27 years later. The purpose is to reflect on what we have achieved, but also to plan how we can overcome. ugu dambeyntii xafladaasi waxa soo afmeeray madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isaguna bogaadiyay marxaladii kala duwanaa ee Somaliland soo martay iyo waliba sida loo soo qaban qaabiyay shirkan iyo waliba dawladaha ka soo qayb galay shirkani. dhammaantiiba waan ku soo dhaweynayaa ka soo qaybgalka shirkan ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha dibadda ee lagu lafaruuray 27 sanadood Somaliland waxay qabsatay xawla soo dhawaada. وفود الله welcome to you all. مرحبا بكم. قريب سهل. انت ايامك شيغان مدحدي Somaliland ee hadashay waxa ku daray saddex qodob oo Somaliland u gaaraho ay sumad gaar ah u taariikhda adduunka. dadka Somaliland inuu yahay dad isku kalsoon oo isagu wax uriya oo wax dhisa oo dalkiisa ilaashada oo horumarka iyo xorriyadda jecel taariikhda uga marxalad furta. Somaliland markii Afrika isticmaalku soo galayay dhammaan cid kastoo ajnabi u timid oo dalka Somaliland markaa dadkii gumaysanaya ah heshiisay ayay la gashay ay ku ilaalinaysa danaheeda iyo dalkeeda. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to address the participants of the important conference on Somaliland achievements and challenges ahead 27 years later. Particularly, I would like to express our appreciation to Somaliland friends who traveled from far to attend this important meeting. The government and the people of Somaliland are fully aware of the important role that Somaliland friends play in strengthening the relationship between Somaliland and international community and their tireless effort to help Somaliland achieve its development objectives and international recognition. History will record the important role of Somaliland friends. Ladies and gentlemen, however hard we try,
We cannot capture the tremendous achievements Somaliland has made in the last 27 years. Somali Abdi Ahmed Karile warbaahinta Star magaalada Hargeysa.